war degdega beesha dhulbahanta ayaa wacad ku maray in hargeysa ay lug ku gali doonaan iyagoo sheegay inay heesaan hub noocyadiisa kala duwan iyo dabaabaad culus iyo si la mid ah ciidamo tirabeel ah kuwaasoo ay sheegeen inay la tagi doonaan caasimadda hargeysa ee somalilan ciidamada beesha dhulbahante waxay wacad ku mareen in hargeysa ay lug ay ku galaan islamarkaana ay halkaasi ka xureyn doonaan dadka yahuudda wakiilka uga ah ee dhulka soomaaliya sida ay iyagu ay sheegeen waxay kaloo xuseen in cabdiraxmaan ciro iyo kooxdiisaba aysan gebi ahaanba wada joogi karin iyo iyaga maadaama iyagu yahuudda wakiil ay ugu yihiin ee dhulka waxay sheegeen in iyagu iyo yahuudba uusan dhulkan soomaaliyeed qaadi karinba beesha dhulbahante waxay wacad ku mareen inay gacanta ku soo dhigi doonaan hogaamiyaha madaxweynaha dowladda somalilan cabdiraxmaan ciro iyagoo sheegay inay la xisaabtami doonaan islamarkaana ay saari doonaan maxkamadda awoodda u leh inay xukunto cabdiraxmaan ciro si la mid ah waxay sheegeen in hargeysa gacanta ay ku dhigi doonaan islamarkaana dib ugu soo gacangelin doonaan gacanta dowladda federaalk ee soomaaliya beesha dhulbahante iyo maamulkoodaba ayaa la sheegay inay qorsheynayaan dagaal culus ay ku qaadaan guud ahaan ee somalilan sidii dhulkaasi loogu soo dari lahaa waqooyi galbeed gobolada la yiraahdo iyagoo qorsheeyey in markaan ay qaadaan weerarkii ugu dambeeyey 2 maalin ka hor ayay ahayd markii beesha dhulbahante ay sheegeen inay jihaad ka iclaamin doonaan jihaad ka dhan ah ee somalilan haddii ay ka laaban waayaan waxa imika ay wadaan islamarkaana ay ku sheegeen inay yahuudda ay walaalo ay leeyihiin qorshahan ayaa la sheegay inuu dhibaato ku noqon doono ee somalilan haddii taasi ay dhab noqoto islamarkaana beesha dhulbahante ay weerar ay ku galaan caasimadda hargeysa ee somalilan beesha dhulbahante ayaa sheegay in weerarkan sida ugu dhaqsiyaha badan inay qaadi doonaan ee maalmahan ugu soo aadan iyagoo sheegay in dabaabaad culus gawaari noocyadooda xaamuulka hubka qaada ee sida iyo si la mid ah ciidamo tirabeela ee infantry oo lugta inay ku gali doonaan magaalada caasimadda hargeysa ee somalilan halkaasina ay la wareegi doonaan hargeysa kadibna ay sheegeen inay soo qaban doonaan cabdiraxmaan ciro iyo si la mid ah tiimkiisaba deetana guud ahaan soomaaliya ay dib ugu celin doonaan ee dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamada beesha dhulbahante ayaa la sheegay inay qorsheynayaan weeraro culus ee ka dhan ah ee somalilan waxaase la sheegaa in xog sirdoon oo hoosaada loo helay cabdiraxmaan ciro oo helay ayaa tilmaamaysaa in maalmaha nagu soo aadan suuragal ay noqon karto in beesha dhulbahante iyo maamulkoodaba ee gobolada waqooyi bari state ay weerar culus ay ku qaadaan somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa la sheegay in gurmad iyo gargaar degdeg ah uu ka dalbaday ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu isagoo si degdeg ah khadka taleefonka ugula hadlay islamarkaana sheegay inuu u baahan yahay markaan ay tahay xilligii dhabta ahayd israa'iil haddii ay garab ay u tahay somalilan ay soo muuqato sidoo si la mid ah cabdiraxmaan ciro maxaa dalbado ah waxaase la sheegaa in madaxweynaha somalilan uu dalbaday hub noocyadiisa kala duwan weliba kuwa casriga ah imika adeegsada ciidamada israa'iil ay ku xasuuqaan ee shacabka falastiin waxaase la sheegaa in hubkan ay ka mid yihiin dabaabaad culus kuwaasoo looga talagalay inay qaadaan ciidamada iyo si la mid ah hubab tirbeel ah iyo waxaase la sheegaa qaraxyo oo culus oo kuwaasoo ah noocii ugu dambeeyey oo adeegsato israa'iil inay u soo gudbiso ee somalilan si ay iskaga difaacaan iyo qalabka ciidamada oo inta badan adeegyada degdega ee muhiimka oo dagaalada loo adeegsado arrintan ayaa sabab ku noqon karta in somalilan mar kale ay weerar culus ay la gasho ee beesha dhulbahante iyo guud ahaan ee maamulka halkaasi ka jira iyaga kasoo horjeeda waxaase la sheegaa in beesha dhulbahante iyaduna ay wado is-aruursi xoogan kaasoo ay ku qorsheynayso in weerar ay ku qaado ee somalilan dhulkaasina mar kale ay ku darto dhulka ee gobolada waqooyi bari si toosa laisku yiraahdo islamarkaana dhulkaasi oo idil hal mar uu hoos imaan doono xukuumadda federaalk ee soomaaliya qorshahan ayaa ah midka ugu fudud ay qorsheynayaan beesha dhulbahante waxaase la sheegaa in weli beesha dhulbahante aysan ka quusan ee somalilan iyagoo tabashooyin kale ka tabanaya ee somalilan si la mid ah horey uusan xaquuqaad uga helin haddana waxaase la sheegay in ay u arkaan fursad culus oo cusub kuwaasoo u saamaxaysa in magaalada caasimadda hargeysa ay lug ay ku galaan beesha dhulbahante iyagoo wata gaadiid noocyadiisa kala duwan gawaari culus ciidamo lugta ah islamarkaana magaaladaasi ay qabsadaan waxay sheegeen inaysan shacabka taaban doonin laakiin maamulka iyo ciidanka iyo cid kastoo ka hor timaada beesha dhulbahante diyaar u tahay inay la dagaalanto waxay sheegeen inay dhulka ay ku dari doonaan
iyagoo si la mid ah magaalada Hargeysa ay noqon doonto caasimadii labaad ee Soomaaliya si rasmi ah ayna hoos imaan doonto maamulka Waqooyi Bari State ee Soomaaliya. qorshahan ayaa midka la sheegay beesha dhulbahanta ay qorsheynayso iyo madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo hub tirabeela uu ka dalbaday ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa la sheegay inuu ka aqbalay codsigiisa laakiin uu shuruudo adag uu ku xiray taasoo ay tahay inuu u ballan qaado horta inuu dagaalka haddii uu galo Cabdiraxmaan Ciro inuu ku guuleysan karo beesha dhulbahante maadaama Benjamin uusan ogeyn taariikhdii hore markuu dib u tixraacay oo ogaaday kadib aqoonsiga uu siiyey Somaliland in dhulkaasi buxuug looga qaatay Somaliland iminkana uu shaki ku qabo in mar kale beesha dhulbahante ay qabsato Somaliland. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isagoo la hadlay wasiirkiisa arrimaha dibadda wuxuu ku yidhi bal soo hubso haddii ay ballan qaadayaan Somaliland inay guul rasmi ay ka keeni doonaan haddii dagaal ay uu dhaco isla markaana ay wajahaan beesha dhulbahante amaba dowladda federaalka ee Soomaaliya. arrinka markii hore waxaa loo heesay in howlgal gaar ah imishimo gaar ah ay fulin doonaan sirdoonka Soomaaliya iyo ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliyeed kuwaasoo la saadaalinay inay fulin doonaan weeraro culus oo ka dhan ah Somaliland laakiin iminka arrinka ay isbedeshay maadaama horey beesha dhulbahante ay gacanta ugu dhigtay dhulal aad u tirabeel isla markaana ay ka qabsatay Somaliland mar kalena suuragal ay noqon karto sida weerarka iminkaaba ay qorsheynayaan beesha dhulbahante in halkaasi caasimadda ay lug ay ku galaan wax kastana cagta ay mariyaan.